وقيبتي لحاد شاكدي متان عيدت dhegaystayaal waxay inoo maraysay mataan oo sidii loo joogay maalin maalmaha ka mid ah ay ku soo dhacday inuu guursado waatuu doonay Salaada Yuusuf oo qurux iyo qabnaba gashaatimihii geyiga ciideed ku noolaa ka tilmaanay dabadeedna nimankii uu la xididay waatuu yaradka faraha badan ku bantooqay waatay iyagiina arooska la yaab kale u abaabuleen inantiina si xurmo idilay ku dheehan tahay goor fiida ay ugu hooyeen su'aashii inoo rahmanayna waatay ahayd aroos gobeed buu ahaa rag allow ninkii sidaa loogu maamuusay muxuu kaga abaalguday sideedaba faanfaan ma ahee dulucda guurku waa taranka aadanaha oo loo diidayo inuu tirmo ismahersiga inanka iyo inanta waxaa looga gol leeyahay dhimasho kadib inaan magacooda ifka lagu xusi waayin mashxaradda arooska ugu dambaysa waxaa lagu xijiyaa ducada caanka ee ay wiilka iyo caanuhu ku sheegan yihiin raas weyn inay noqoto oo abaydin gaaray lagu gallado ayaa gabadha loogu duceeyaa xigtadeeduna waxay u gadaal filaan sayga inuu eebbe bayaxo uga dhigo macnaha guurku leeyahay isweheshiga ka sokow waa carruurta labka iyo dhadigaba leh ee uu reerba ku noqdo mataan ciideed inankii la baxay ee Salaada guursadayse isaga talow xigmadaasi ma u muuqatay arrinta markeedii horese sidaa ma u galay wuxuu ahaa nin ku dhaqma wax kasta oo aan dadka kale ku dhaqmin wuxuu ahaa nin ay la xalaareed in uunka kale la mid noqdo nin la jeclaysiiyey inuu dadka ka duwanaado waxaa la xumaatay sida dadka kale intuu haweenay guursado oo la aqal galo inuu carruur eebba ka tuugo oo hooyo iyo aabbe ay wiilal iyo hablaba u noqdaan wuxuu ku tashaday guurkiisu mid sheeko reeba inuu ahaado mataan baa guursaday wax lala yaabaana ma dhicin way u cuntami weyday sokeeye iyo shisheeyaba dhibaato kasta dad waad u geysatay welina itaal rag waa tahay yaan wacdarahaagu isdhimin ayuu ku tashaday guurkaagu ha noqdo midaan isaga oo kale weligeed la arag eed kastaa ha ka timaadee ayuu naftiisii kula heshiiyey dabadeed 2-3 habeen kolkii Salaada iyo isagu uu midkood waliba aqalka doc ka seexanayay sidii laba nin ay u wada joogeen ayuu fiidkii dambe daboolka uga qaaday tashigii uu shaydaanku laabta ugu tiray oo muxuu ahaa wuxuu ahaa sidii nin iyo afadii inay aqalka ugu soo wada hoydaan sidii laba ninna ay ugu wada noolaadaan waa waxaan taariikhda guurka weli soo marin war oo idil wuxuu ugu soo koobay Salaadooy boqorka ciideed ayaan ahay adiguna marba haddaad afadaydii noqotay haweenka ciideed ayaad boqorad u tahay oo maanta kadib Salaada ciideed weeye magacaagu Salaadooy boqor iyo boqorada inay wax iska doontaan waa ila liidasho wallac uur umul iyo jiracsanaan dumar maxaad ku fali ubad aad daadiso iyo ilmo aad araxda ku xambaarto waan kaalahan weynahay inaan sidaa ku wada joogno sheeda iska dhowrano iskana sheekaysano ayaa inoo guddoona sow amankaagii afkala qaad ma noqon sow xaajo ugub oo abwaan soo jira ahi aanu u soo joogin ma aha farfalxumo aan mataan cidi uga horrayna sow ma aha go'aankaasi loon Salaada hawraarsan bay tiri oo maxaa kale oo ay oran karaysay inan ka mid ah hablihii Soomaaliyeed ee qarnigii 19aad inta la guursado lala aqal gali jiray hablihii soo qaadka guurkaba ka xishoon jiray marka la guursadana inay magaca ninkooda afka ku ballaariyaan ka leexan jirayo ay ceeb la ahayd hablihii markay saygooda xusayaan oran jiray wadaadkii reerkan lahaa ama carruurtayda aabahood iyaga oo ka xishoonaya jaamac hebel ama guulada hebel inay carabka ku ballaariyaan sidaa daraaddeed guddoonka mataan ee guracan xikmaduna ku yaray Salaada dood kama ay soo celin muddana sidaas ayay ku wada joogeen aqalka ayay u soo wada hoydeen caana iyo wixii kale ee ay haysteen ayay quuteen way sheekaysteen dabadeedna way kala seexdeen sidee baa markii dambe arrinta lagu ogaaday miyaad dhegaystay weydiin waxaa la yidhi waayadii hore waxay Soomaalidii reer miyiga ahayd rumaysnayd kolkii uu doobku aroos galo inuu tabar dareeyo oo haddii uusan isdhaqaalayn uu degdeg jirkiisa u dabcaayo sidaa darteed waxaa caqli lagu tilmaami jiray bariyaha aqalgalka ninka aashi socodka ah
si kolka loo ogaado barbaarkii aroosay labadaa wadda mid uu qaaday waxay dhallinyaradu muddo kadib samayn jireen tijaabooyin lagu garan jiray hebel inuu isboobay iyo in kale tijaabooyinkaas waxaa ka mid ahaa orodka legdanka iyo bootimaaleysiga haddaba aqalgalkii mataan iyo salaado haddii ay bili ka soo wareegtay ayay dhallinyaradii beeshu bootin dhisteen inuu ka boodo geedihii la isdultubay ayaa loogu yeeray haddii uu weli yahay sidii lagu yiqiin ama uu beri hore ahaan jiray ilayn sida iyaga la ahayd waa nin aan maalloonayne si xallad leh ayuu isaga jaray taasise layaab dheeraada ma lahayne waxay dhallinyaradii layaab la kala jeesatay markii salaado oo goobta joogtayna ay dhismihii ka booday oo sidii barbaar xooggu u buuxsamay ay cirka isaga jartay durba buraan baa bilowday waxbaa la dareemay shaki iyo xamxam baa beeshii ka dhex abuurmay qofba qofkii uu ka hor yimid ayuu labada ruux xaalkooda ka toyday kolkaas baa salaado waxaa loo diray dumar soo waraysta dhismihii aan maanta ogayn gabadhii ka booday aroos ma geline salaado inoo waran ayaa waxaa ku yidhi haweenkii oo raggiina uu ka warsugaayo waxay jawaabta ka meermeertaba waxaa markii dambe laga helay aqalkii arooska sidii ay ku gashay inay baaqi ku tahay bulaankii iyo xamxamtii baa sii batay warmihii tuhunka ayaa mataan lagu halgaaday waxaaba shaki la geliyey ooga ahaan qof dumara oo ugub siduu say ugu ahaan karo xilligaa ma jirin tuhunka isaga ah tabaale ka weyn oo la soo gudboonaada nin dhowaan guursaday jirooyinka ka mid ah oo daawo lagula tacaali karo looma arki jirine waxaa loo arki jiray liidasho quursi lagu muto gudashada waajibka ninnimo oo laga soo dhalaali waayaa waxay bulshadii waayadaa la ahayd ceeb aan ceebi ka weynaynoo aan ninka ka hadhi jirin safka laboodka iyo dhadigoodkana uu labadaba ku seegi jiray qaar ka mid a odayadii aanu wax ka warinay waxay ku sheekeeyeen mataan ma awood la'ayne wixii uu falay wuxuu kaga aarsanayay salaado qudheeda oo waagii uu doonayay diidma yar looga soo sheegay sababtu taag daran ah qaabka aarsiguse sirgaxana si kastaba ha ahaatee mataan ciideed guuxii bulshada ayaa gaaray aad buu uga xumaaday in ninnimadiisii la duray inuu ka gelgisho ayuu damcay ha yeeshee eed kale oo kibirku ka hakin waayey ayuu dhabarka u ritay waa nin gardarrada marab loogu daadsaye gabadhii uu asaageed ka reebay ayuu haddana ceebeeyey oo keligeed ma aflagaadayne hooyadeed oo sodohdiis ah sii galaaftay hadal tiraabahoo lagu sheekeeye waa laga kabtaa oo la iska iloobaye hooyaalo maanso ayuu labadiiba ku dhaleeceeyey kolkii loo soo hooyey inaysan isku sanbanaanayn ayuu salaado ku tilmaamay sodohdii dhashayna wuxuu ku cambaareeyey inanteeda inay ababkii hore ka xumaysay wuxuu ku eedeeyey farsamo xumada gabadheeda yaraantii ku soo gaadhay inay iyadu ku ogeyd raallina uga ahayd gabadhiiba wuxuu ka soo saaray qurux foolka ah ha joogtee ruuxaan inaba wax kale la gola iman wuxuuse ku roonaa sidaas qabiixan inuusan wax u odhanine wuu u sarbeebtay taasaana keentay in la kala wariyo gabaygiisii ba'naana uu ina soo gaaro geed la tuuran yahay oo dhallinyaro iyo waayeelba aan loo kala maqnayn ayuu soo joogsaday isaga oo taxaabanaya faras xamar ah oo uu lahaa wax yar kadibna wuxuu goobtii ka tiriyey gabaygii uu salaado iyo hooyadeed ula jeeday isaga oo inanta faras ugu sarbeebanaya sodohdana geenya ku maldahaya wuxuu yidhi inta geeda geelwaaqistaa ugu guduud roone hadday gaaja dili xoolihii goosan mahayaane garanuugta waan ugu nacbahay gebi ogaareedee gaaraabidhaan laguma daro galowga haadeedee golcastaa sagaaro ugu daran guuya dhaantida ee waxba kuuma galo roobla dhacu waana shay gobe galka sirow raacdada markii la isku soo gaaray neef yahu guduudani midkii gaabiyaa tahaye guuldarrada waxaa kuugu wacan geenyadii hore eh isgudgudubkii xamarow maxaa golihii kaa raacay waayadaa waxaa ceeb aan ceebi ka weynayn ahayd dumarka oo wixii lagu qoonsado gabay lagu sheego madaxayga cid soomaali ah oo mataan uga horraysana ma ay jirin afada la qabaa kuma sii jirin waxaase ka sii daran oo laga siqoon jiray sodohda oo xurmo mooyee ninka gabadheeda markaa qaba amaba qabi jiray aan wax kale ka mudnayn ha yeeshee ninka aanu hadal haynaa waa mataan oo xeerka dadka qabtaa aanu isaga qaban